ugu horeyn waxaan halkan ka bogaadinayaa kana hambalyaynayaa maxamed muuse jaamac daamir oo noloshan halgan dheer soo galay buug qiimo badanna caawa aynu daahfurkiisii joogno uu sooyaalkiisii taariikheed ka warramay maxamed buugga uu qoray waan akhriyey waa buug aad u qiimo badan qaab qoraalkiisuna farshaxanimo ku jirto maxamed maanta hadduu laxaadada qaar la'yahay waxaan buugga ka akhriyey in noloshiisu laba qaybood ahayd qayb uu laxaad lahaa iyo qayb uu laxaadada qaar waayey labadaa wakhti waa laba wakhti oo isleeg maxamed kuma niyad jabin nolosha wuu la halgamay waxaana xaqiiqaa inuu guulaystay maxamed wuxuu xaqiijiyey inaanu noqon halganka nolosha kuwa hadha maxamed buugga uu qoray waxaa ku duugan farriin aad u weyn oo ah in qofku wax walba qaban karo nolosha waajihi karo waxaa ku duugan oo cashar ugu filan dhallinyaro badan oo niyad jabtay oo laxaad leh oo maxamed ka itaal roon oo maanta qaarkood xanuunnada ay nagu soo badanayaan xataa maskaxdu kuwa dhimirka oo kale oo ka dhashay warwar iyo feker iyo yaqiin darro iyo iimaan yaraan maxamed cashar buu u yahay maxamed buugga wuxuu u bixiyey hadhiwaa isaga laftiisa markaynu eegno sooyaalkiisa taariikheed maxamed waa hadhiwaa laftiisu halkudhigga aynu habdhaqankiisa ka baranaynaana waxa weeye caawa hadhiwaa ma hadho hirdanka halganka nolosha iyo hirdanka siyaasadda labadaba waxaan leeyahay ruuxa hadhiwaaya ma hadho dad fara badan oo maxamed la mida oo aan laxaadada qaarla ayaa noloshan guulaystay waxaa ka mid ah ninka sayntiiska ugu weyn qarnigan qaybtiisii dambe marka laga yimaado albert einstein ee la yidhaahdo stephen william hawking ninkaasi oo nin ingiriisa ahaa aragtiyo badan buu dunida ku kordhiyey 21 jir isagoo abaa xanuun xubi ku dhacay oo neerfayaasha ah laxaadkiibuu waayey codkiibuu waayey maxamed maanta wuu hadlayaa haddana ninkaasi 55 sannadood buu xanuunkaa la noolaa wuxuu noqday the greatest scientist in modern history taariikhda aadamaha sayintiiskii ugu weynaa buu noqday waxaas oo dhammi cibaarooyin baa ku filan maxamed iyo kuwa kaleba casharadaynu ka baranaynaa waxa weeye curyaannimada dhabtaahi maaha cagaha iyo cududaha oo la beelo curyaannimada dhabtaahi waa caqliga iyo wax curinta oo la beelo waxaan leenahay maxamed hambalyo waxaan leenahay ha ku daydeen dhallinyarada somalilan maxamed casharro badan baa ku duugan farriintiisu caawa waxa weeye buuggaa ku duugan marka la isku soo duubo waxa weeye inaan la niyad jabin in noloshu leedahay fursado noloshu dhibaatooyin iyo caqabadana way leedahay fursadana way leedahay caqabadaha waa in la xalliyaa fursadahana waa in laga faa'iideeyaa maxamed mar labaad waxaan leeyahay hambalyo halganka noloshu wuxuu inooga baahan yahay doonitaan iyo damac fiican wuxuu inooga baahan yahay dulqaad badan wuxuu inooga baahan yahay dadaal badan wuxuu inooga baahan yahay dareen togan wuxuu inooga baahan yahay aragti durugsan tiirarka nolosha lagu guulaystaa waa kuwa waa isku mid guusha noloshu ma laha dariiqooyin iyo formulooyin kala duwan intaasay leedahay maxamedna intaasuu xaqiijiyey intaasuu u dhabaradeygay maxamed waxaan leeyahay hambalyo maxamed waxa iyo inta la midka inaynu isgarab taagno weeye laba farriimood uun baan halkan ka gudbinayaa ta koowaad waxa weeye dadka noocaasa waa in fursadaha shaqada wax laga siiyaa maxamed buuggiisa waxa ku qoran isagoo ka warramayey markaan waayey shaqooyinkii gaarka loo leeyahay ayaan wasta u galay shaqo dawladeed maxamed iyo noociisa waa in la isgarab taagaa fursadaha shaqada waa inaynu bulshada qayb ugu talagallaa sidoo kale waxbarashada iyo nolosha iyo guryahana waa in dadka laxaad kale loogu talagalaa oo aqalada la dhisayo loogu talagalaa meel ay ka koraan
oo waxbarashada iyo jaamacadaha loogu talagalaa meel dadka baahiyaha gaarka mudani ay ka galaan waxaan ku soo gabagabeynayaa maxamed waxa halka laga sheegay inuu dhakhtar doonayo inuu qabto waxaan leeyahay maxamed dhakhtar waynu diri karaa maxamed hadday dawladdeennii inaga kafaalo qaadi weyday cashuurta ummadda ururinaysay ee xilkeenna haysay ee isagana madaxda u ahayd hadday ku guuldarraysato inay kaalmayso dee aan kaalmayno guddi qabanqaabaha loo sameeyo qaar aan u samayno halkaa waxaynu ku fadhinaa kumaankun waxaan leeyahay maxamed yaynaan buugtan ku hadlayne aan gaar u taageero dhakhtarkiisa ha la bixiyo oo aan ururinno haddaanu nahay ururka siyaasadeedka ka ahna qayb baannu ka qaadanaynaa xaaladda caafimaad ee maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin hambalyo baan leeyahay maxamed inta kalena tusaale inoogu filayay